السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وإذن سلامي أنت مقعيقة يموقيقة بتقانا وحان إذنكو سلامي سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحان رباي إنا وحير هل كان كإراهدو لابا قبلوت وان سوشيال ميديا كأركي inta badan dumarka ma jecli in wax qaldan ma ahan inaan dumarka aan ku dheeraado ama aan wax ka sheego. Qofkii qaldan rag iyo dumarba wax waa laga sheegayaa, laakiin sideeda dhanba inaan qof caayo ama qof jaa-ifeeyo ama qof aan wax ka sheego ma jecli. Balse waxaan leeyahay labada gabdhood ee xalayta aan ku arkay social mediaha, waxaan idin leeyahay labadiina horta ma leedihiin dad adinka idinka masuula oo idin cishada? Ma ogtihiin inaad tihiin gabdho Soomaaliyeed? Ma ogtihiin dhaqan iyo diin midna inaadnaa lahayn ood ka tagteen? War haddaad xitaa ka xishoon weyseen, haddaad Soomaalidii ka xishoon weyseen, haddaad wax walba aad maxay ka xishoon, Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo idin abuuray gabdhood maxaad uga xishoon weyseen? Gabaray ma ogtahay sidaada dhanba inaa adiga dhanba aad cawro tahay? Labada gabdhood waxay kala yihiin, horta gabar waa gabar yaroo dhalinyaro ah. Social media dhowr jeer ayaan ku arkay ayada oo qabiilo Soomaaliyeed xitaa caynayso, aflagaadeynayso oo dhahayso qabiilkaas hebel anigu ma guursan lahayn, ayadoo wiilal oo madow maxay ahaayeen anaga waa madow laakiin maxay tahay Kenyaati iyo Ugandaysa wadata waan arkay. Laakiin xalayto horena waad u samaysay, laakiin waxaa keentay wixii ugu anshaxa xumaa oo ugu akhlaaqda xumaa oo gabar Soomaaliyeed ama haweeney Soomaaliyeed ama qof Soomaaliyeed uu sameeyo ayaad keentay. Taasina waxay tahay horta sideeda dhanba caqiidada islaamka ma lagu baray. Waalidkaa aaway, gabar yaroo dhalinyaraha tahay, waalidkii ku dhala aaway, dadkii ku dhala aaway, anshixii aaway, asluubtii aaway, dhaqankii aaway. Waxa aan ku leeyahay gabaray haddaad walba faasiqad noqotay oo aad ka dheeraatay yacni waxyaabaha aad maxay tahay xataa diinta iyo xadkii ay ku celin waayeen bil asxaanak bifadlakum nagala dheeraaw asa Soomaalida kaleeto waxaan leeyahay soo sheer garaynaysa biliis waxyaabaha xunxunka oo qurunka ah oo nijaasta ah maxaa u jeceshiin inaad sheer garaysaan? Maxaad ku jeceshahay wiilow gabar Soomaaliyeed ee anshax xumo sameynaysa, ee dhaqan xumo sameynaysa, ee diinta islaamka wax ka baxsan sameynaysa inaad social media keento oo aad social media kusoo sharaxdo? waxaan ku leeyahay taasi kuma noqonayso dhaqan, taasi diin kuma noqonayso, taasi kuma noqonayso wax aad andacooto oo aad leedahay waa la fiirsanayay. Gabaray waxaan ku leeyahay waxyaabaha aad xalayta sameynaysay waa wax runtii foolxumo iyo anshax xumo oo aad iyo aad u xun. Xitaa waa waxyaabaha gaalka ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kufriyay oo buuriyadii ku taalo oo maxay ahaayeen aanban aqooninba Ilaahay, waa waxa uu ka xishoodo oo maxay ahaayeen uu ka hundo uusan samaynin. Ma garatay adigana adoo hooyo iyo aabba ku dhaleen, hadda maxay tahay Soomaali lagugu dhalay, dhaqan lagugu dhalay, ayaad waxaad samaynaysaa anshax xumo midii ugu xumeed oo wasaq ah oo adigoo nin gogol kula jira ayaad social media keentay. haddaad maxay ahayd qofku hadduusan marka horta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqaynin amuusan maxay ahayd awalan shayga ugu horeeya waa inaad Allah subxaanahu wa tacaala ka baqdaa. Haddaadan Allah subxaanahu wa tacaala ka baqaynin oo aadan xishoonaynin yacni oo aadan xishoonaynin oo aad ka tagtay dhaqankii oo aad ka tagtay diintii oo aad ka tagtay asluubtii oo aad ka tagtay wixii wanaagsana bil asxaanak bifadlakum Soomaalida kala dheeraaw. Soomaalida ma taqaanaa kala dheeraaw oo kula joog meelaha aad joogto, waayo waxa weeye maxay ahaaytay haddii aan maxay ahaaytay aad la soo dhex gasho Soomaalida waxaa arkayaan kuwa adiga kaa sii liito caruurahoodii guryaha la soo joogaan oo aanba waxaanba u maleeya ilbax ama ilmo yaryar u soo ama waa sii fasahaadineen mid iimaanku uu halkaan joogay wax yar oo yacni maxay ahayd meelahan caloosha iyo iimaanku ka joogay oo uusan iimaankiisu gaarsiisanayn meel sare ama meel wax laga qaban karo ayaad sii fasahaadinaysaa. Gabaray waxaan ku leeyahay hadda waad yar tahay, malaguna wuxuu kaaga sokeeyaa sanka iyo faruurtayda inta u dhaxayda ayuu malakal mawdku kaaga sokeeyaa. Inta aad neefta ka tiraahdo ayaa malagu ku jira
waxa weeye ma ogid meesha lagu sii jiro. towbadana aniga ma bixiyo, adigu ma bixisid, kuwana daawan doona ma bixiyaan. waxaa bixiya allah subxaanahu wa tacaala. ilaahayna isaga ayaa kule ibari waan kaa aqbalayaa. ilaahay bari oo ilaahay u toobadkeen oo allah subxaanahu wa tacaala u noqo oo ittaqillah dheh. ilaahay u noqo, ilaahay u toobadkeen. ilaahay waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala. weyse ayaan qabaa oo salaadii duhurkii aan tukaday, casr weli ma tukanin, ayaan maxay ahayd korkayga ayaan weyse qabaa. ilaahay waxaan weydiinayaa hadduu gabaray hanuun alla kula doonana in allah subxaanahu wa tacaala hadaaya waa min allahi. allah subxaanahu wa tacaala uu kusoo hadeeya. hadduusan alla hada kula ilaa shaydaanku uu kaa qaalib noqday oon hadaayo lagula doonina in ilaahay naga kaa qabto indhaxumadaada aanaan mar dambe haddaan nahay dad Soomaaliya oo islaam ah oo dhaqan iyo anshax iyo aadaab lagu koriyo inaadan horteena imaanin. gabaray waad yar tahay, maalin waxaa kuu imaan doonta gacmahan aad iyo maxay luxaysid aadan luxi dooninin, carabkan aad hadda ka nagnagsiinayso aadan magaciisan dooninin. haddii walba aad maxay gaal iyo faajir iyo mid diinta islaamka ka tagay qof waayahan dhan waa arkaynay Soomaali gaalowday, waa arkaynay Soomaali waxaan ba aragna kuwa dhahayaba ilaah maba jiraba. ma garatay? walciyaadu billah. haddaysan ilaahay jirinin yaa iyaga abuuray, siday ku yimaadeen, siday ku nool yihiin, sida yaa siiyey sankooda layrta ka baxaysa xaggee ka timid, yaa indhahan siiyey, yaa dhagahan siiyey, yaa carabka siiyey, yaa lugaha siiyey, yaa lixdooda lixaad oo kaamila siiyey. soo allah subxaanahu wa tacaala jalla soo muusan siinin. waxaa iman doonta maalin adiga keligaa mooye cid kaleeto aysan kugula jiri doonin ama kula joogi doonin meeshii mugdiga ahayd. gabaray waad yar tahay, gadaal u noqo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobadkeen oo toobada taas wada. taa waxaan leeyahay waa gabadhii yareed ee xalayto anshax xumada iyo akhlaaq xumada ku sameynaysay live-ka videoga ee kolay Kenya iyo meelahaas ay joogtaan. labada naagoodba Kenya ay joogaan iyo Uganda. war waxaan idin weydiiyay reer Kenya ilaahay subxaanahu wa tacaala qurbaha wax ka sheegtaan, war qurbaa joognaa, adinkuna qurbaa joogtaan. akhlaaq iyo aadaab baanan leenahay. ma garatay? ma aha wixii la arkaba in qurbaha loo nasbeeyo. kuwa halkaas jooga kuwa lamida oo wasaqoona inta waa joogaan, kuwa halkaas jooga oo akhlaaq iyo diin iyo asluub leh ayaga kuwa lamida oo akhlaaq iyo asluub leh oo diin leh ayaa joogaan. waxaan leeyahay gabadha kaleeto oo horta waxaa waaye wallaahi aad baan kaaga carooday, aad iyo aad baan kaaga carooday. waxaana carada iga sii keenay carada iga sii keenay midka wixii aan ogaay aad ku samaysay ee raganimadiisii xataa aad meel uga dhacday ee weliba inta qaada marwa waaba liiqabaha leedahay, marwaan ahaa leedahay. walaalay maxaa kuu diiday anshaxa? horta macnaheeda branki ma taqaanaa? brankiga waa maxay? sidee loo sameeyaa? muxuu macnihiisa yahay? xaggeesa laga keenay? gabar yahay Soomaaliyeed ee aan aqoonin brankiga waxa uu yahay ee ninkii iyadu leedahay wuu iqaba waa saygaygii oo maxay tahay xalayto dukaanka soo dhex fadhiisatay. xishoodka xaguu kaa aaday? na astaxyadii xaggee kaa aaday? na diintii xaggee kaa aaday? na dhaqankii xaguu kaa aaday? na gabdho Soomaaliyeed baan ahay oo haweeney Soomaaliyeed baan ahay oo hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo marwo Soomaaliyeed baan ahay. iskumana quuro waxa aad samaynayso. na gabarey miyaadan xishoon? miyuuna rag kula dhalan? na miyuuna rag ku dhalin? na miyaadan rag u dhixin? ragga midka aad u dhaxday anigu haddaan nin rag ah maba ku qabeenba. Soomaalidu waxay tiraahdaa saddexdaadii suubisaan kuugu fura, 9 iyo suubiskaagan soo noqosho lahayn rajacto aan lahayn aan ku siin lahaa aniga. laakiin ilaahay markii horeetaba rag igama dhigano dumaro iga dhigay. haddaad miyaad ilaahay ka xishoon weysay oo miyaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ku abuuray ee koonkan ku keenay ee qaaliqul khalqiga ahay maxaad uga xishoon weysay gabarey? Soomaalida kamaad xishoonin. aawa diintaad maxaad xijaabkan yar aad xiran tahay muxuu kuu tarayaa? maxaadse ka xijaabanaysaa marka aad leedahay kana waa la isku buufina kana waa la cunaya? walciyaadu billah. markaas branki baan samaynaya, dukaan dhexdiisaan ku samaynaya, guriga
waxaasi wax sharaf la ma ahan, wax fiican ma ahan. Na xaggee ka baratay? Barankigu waa maxay? Akhlaaqdaadii aawe, islaamnimadaadii aawe. hooyo miyaadan ahayn? miyaadan caruur dhalin? miyaadan ka cabsanaynin caruurtaada adiga oo hooyo ah? haddaadan hadda dhalina soo ninka waxaad ula galgalanayso inaad ilaahay owlaadkaasiiya maa? hadduuse ilaahadkaasiiya akhlaaqadeed ku korinaysaa caruurtaada? caruurtaadu xaggay tegayaan? caruurtaada waa maxay meesha aad ku korinayso iyo sida aad u korinayso iyo tababarka caruurtaada aad sii doontahay waa maxay? ma waxaad sii doontaa hooyo anigana waa sameeye sameey? mase waxaad dhihi doontaa ood u sheegi doontaa waxa allaha subxaanahu wa tacaala uu ku sameeyey? maxaa la filanaa marka adiga oo hooyo ah ama haweenay soomaaliyeed ah intaad social media timaado aad galmo ka sheekaynayso, aad meeshii guriga xiran iyo asturka iyo akhlaaqda iyo aadaabta loogu talagalay aad ka sheekaynayso, ee weliba waxa maxay ahaydtay rag baa jooga? miyaadan rag kula dhalan? waa yaabay. miyaadan rag dhalin? miyuuna rag ku dhalin? miyaadan ka xishoonaynin xitaa kii ehel kula ahaay? xagu koobka shaha wallahuse maqaayada ka cabi karin walaalkaa wallahuse ragga la kaftami karinin. gabadhan leh waxbaa la buufinaa gabadhan leh muxuuta magaciisigale mar horeetana keentay war qoyska ay ka dhalatay iyo dadka ay ka dhalatay iyo meesha ay joogto. war ilaahay baa idinku dhaariya gabadhan soomaalida ka qabta. war gabadhan dhaqan celis geeya. war gabadhan akhlaaqdaa ka luntay. war gabadhan haweenay soomaaliyeed maahan. war gabadhan asluubtiibaa ka luntay. na xayaatadiibaa kaa luntay oo xishoodkiibaad ka tagtay oo diintii islaamkaad ag martay. naanaga xisho oo dumarka soomaaliyeed meel ha uga dhicin oo gabdhaha soomaaliyeed waxaysan ahayn ha ka samaynin. gabdhaheenna akhlaaq baa lagu yaqaanay, aadaab baa lagu yaqaanay, sharaf bay lahaayeen, maantana ay leeyihiin. guryaha rag baa wada jooga. raggayagana hortooda waxaas kuma samayno, kumana dhacno. mid loo dhaxay, mid ku dhalay, midaad dhashay, mid kuladan iska daa kii anigu aan dhalay, iska daa kaan u dhaxay, iska daa kii i dhalay allah yaa raxmo, iska daa kii ila dhashay. kan aan soomaaliga isku nahay oo wiilka soomaaliga ah ayaan ka xishoonayaa hortiisa inaan akhlaaq xumo ku sameeyo. macaadallaahi waa kii aniga ila dhashay. macaadallaahi waa kan adeerkay dhalay iyo kan aabbahay dhalay aniga waa iskugu kay mid. wax ay ii kala dhaamaan ma jirto. kii aniga aabbahay dhalay iyo kan adeerkay dhalay aniga labadaas farooday ii yihiin. wax ay ii kala duwan yihiin ma jirto. ma garatay? waa walaalahay labadaba isku siyaan u jeclahay. ma garatay? waxa weeye maxay ahaydtay inaan hortooda wax anshax xumaa iyo wax akhlaaq xumaa iyo wax aadaab ta islaamka agmarsan aan ku sameeyo waan ka xishoonayaa. iskumana quuro. wiil soomaaliyeed oo maanta aan sharaf iyo haybad u haayana waan ka xishoonayaa. kaan u dhaxayna iska badaa warkiisa. gabar walba oo sharaf lana kay u dhaxday inay wixii la arko akhlaaq xumo ah hortiisa ku samayso ma ay awoodo. aabaheenna ma awoodno inaan ku samayno. wiilka nala dhashana hortiisa ma awoodno inaan ku samayno. la-anna waxaa noo diidaya waa sharciga islaamka, waa dhaqanka iyo asluubta iyo aadaabta aan haysano. meel baad nooga dhacday gabdhaha soomaaliyeed, meel baa uga dhacday. labadiinana wax idin cishada hadday jiraan. war soomaaliya labadaa gabdhood hadday jiraan dad cishada, hadday dad leeyihiin waliba tanu dukaanayba joogtaaba. tan waaba iska wareegtaaba, waaba gabar yaroo wareegta oo maalin walba wiilasha maxay tahay gaalka buriye qabka ah maxay tahay oo marba meel la seexanayso, marba meel ka luulata waaye. ma garatay? gabadhaa yari waa gabar hadba meel ka luulata gaalkaas. ma garatay? laakiin tani ma ganacsigaagu waa maxay? how dare you inaad tiraahdo ninkaygan branki ku samaynayaa? xabiibiyo xabadka lagaa dhow xishoo daranida xayaatadii kaa tagtay. maxaa xabiibi ah?
sidaad ku keentay inaad sawjkaaga ku dhex ceebaysato social media kan ku qabasa damiir xuma oo dadnimo xuma xaguu ka yimid wuxuu kan ku qabahay isagaaba kaa liita maradaas aan xiranahay ma garataa damiir xataa mara xitaa kuguma xiranto wax yar oo damiira kuguma harin isaguna waa damiir laawe hadduuba kaa yeelo anigu ma arkin ma ku fiirsanin runtii intaa markaa maraysa waa tii talow maxay soo wadaahaan isiri waa tii hore jaa'ifada u samaysee yaa maxay soo wadaahaan iri ma waxay dhihi doontaa Soomaaliya yacni waan qaldamay wixii maxay aqoon la'aan baa ii geysay sibay wax iga noqdeen dadna raalli ahaada miyay dhihi doontaa baan islahay mase in yaran ku daawadaye waa maxay haytay waa sidii uga jalow siinaysaa kaniinigii wixii bay tiri kanna yaa waa maxay tahay hacabo kanna waxaan leeyahay isku buufi naxishoodkaagii aawe xayaatadii dhan way kaa dhimatay waxaan ku leeyahay gabarey Soomaali Maxamed iyo islaamka aad diirka naxa leh oo akhlaaqda leh oo aadaabta leh raalli ahaada dheh ninkaaga iyo gurigaaga ku ekaaw haddaad shaqaysanaysa aadaab u shaqayso ma ahan inaad ninku qabo suuqa dhexdiisa aad tiraahdo ow kan adiga yaa ku baray waxaan adiga yaa cudur baa laga qaadaa soo ma ogid cudur baa laga qaadaa gaalada waxaa sameeya kuwa filimaanta sameeyaan ma filim baad samaynaysaa barankigase haddaad baranki samayso haddaad konton baranki samayso lacagna aad ka hesho lacagtaasi maxay kuu taraysaa waa xaaraan qadcana naaxisho naa maanta waa adduunyo xisho naa xayaatadii aad ka dhimatay xisho naa ittaqillaadhe naa ilaahay u toobadkeen naa maalinta qiyaamo ka baq naa gabarey joog gabarey joog waxyaabaha diinta islaamka mamnuuca ka ah oo xaaraanta ah iska daa horta sideeda dhanba yaa maalintii ninkaa lagugu mehriyey shiiqii kugu mehriyey oo qabiltu nikaaxatu haa ku dhahay waa in inta liidin geeya kala fur la yiraahdaa labadooda honestly ya shiiqii kugu mehriyey ninkaas ee ninka kaaga dhigay inta lagu celiyo ha kaa furo warheede adigana mid baan ku iri midkaan barankiga balaayo lagu sameynaayo ee soo walaf loo imaanaya war 50 milyan qof oo Soomaaliyeed baa ku daawanaysa akhlaaqada iyo xishoodka iyo wanaaga gabadhan ganaha dheedheera meesha fadhisa ee akhlaaqdii ka luntay ee gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda meel uga dhacday yaa baan leeyahay nahoy xayaatada isku yeel oo ilaahay ka cabso oo sida tan isku dhaan qof yahay dhimatay wallahi ma jecli gabar Soomaaliyeed inaan caayo mana jecli inaan qof xataa bini aadana laakiin adigu maradii xayaatadii abad ka dhimatay Soomaali waxaan idin leeyahay samaantu ha sareyso aniga xumaanta nacbahay waxa xumaanta faafiya nacbahay especially gabar Soomaaliyeed ee halkaas akhlaaq xumo ku sameynaysa aad bay ii dhibaysaa wallahi thumma wallahi gabar Soomaaliyeed ma haweenay Soomaaliyeed ha yaraato ha weynaato oo inta social media timaada akhlaaq xumo sameynaysa isqaawinaysa edab darro sameynaysa waxyaabaha diinta islaamka ka mamnuuca sameynaysa aniga aad baa u nacba videogayga share gareeya laakiin please qof kasta oo videogayga qaata waxaan ka codsanayaa hadalka sida aan u iri inaadan jarjarinin haddaa rabto YouTube-kaaga gasho haddaa rabto maxay ahayd TikTok gasho haddaa rabto meesha aragta gasho waa qof kasta oo waxuu quseeyaa inta laakiin ha jarjarin hana googoynin hadalkaygana ha bedelin hadalkaygu waa waano waa dhaxalgala wuxuuna ku socdaa labada gabdhood ee Soomaaliyeed ee akhlaaqda xun ee edabta daran ee waxyaabaha miduna brankiga najaasta samaysay miduna ay inta qaadatay nin gaala inta noo keentay oo halkaas ay maxay ku kufsatay ay waxay rabto ay maxay life ku sameynayso
ilaahay ka cabso naahoy toobad waa furantee toobad keena naa maanta intaan laydin dhaqinin isdhaqa oo toobad keena oo ilaahay u noqdo oo ittaqillaaha dhaha oo jooga gabadhaan weliba marwadaa oo la qabo oo saygeeda suuqa dhexdiisa ku lalminaysa arrimahaas xabiibi meel baa loogu talagalay arrimahaasu meel bay leeyihiin ilaahay baa asturay asturaadii ay lahaayeen intaad ka soo qaaday suuqa dhexdiisii inaad lalmido waa wax aad kuugu ceebo sharaftaadana ku xun waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh